kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daaja oo aalab ah inuu soo diyaariya halkana ka soo jeediya. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummadda iska leh. kan soomaaliduna kama duwana oo wuxuu ku saynsaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xidhiirka dadweynaheedu heerarkii uu soo maray. sideedana dhaqamada aad mooddo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid ah xeerarka oo ay bulsho walba u samaysato dhacdooyin hiddaheeda inta ka mid ahaaday ku soo noqnoqday, ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan. inkastoo ay xoolo raacato u badnayd, ilbaxa reer magaalimaduna uu ku yaraa, haddana soomaalidu xeerar samaysiga waa tiqiin. kuwa weli sida weyn loo xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada ay dhexdeeda colaaduhu ka aroosmaan ay ilaalin jireen. muddo qarnayaala ayaa duulaanka iyo xoolo kala qaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen. sidaa darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolaha soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo. intase aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go'aamin jiray ninka ammaanduulaha u noqonaya, kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday. dagaalyahan in doora loo soo joogay, colkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gabagabo la soo noqonaya. tilmaamahaas nin kale ayay majaraha colka u dhiibi jireen, isaga ayay uga dambayn jireen go'aamada la xidhiira goorta la dhaqaaqaayo, halka la abbaarayo iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan. colku mar waa soo guulaystaa, marna isaga oo soo hongoobay ayuu ku soo laabtaa halkii uu ka duulay. marka uu guulaysan yahay waa marka degmadii uu ku duulay uu dul tago oo inta weerar ku qaado uu geelashooda horta soo marsado, kadib markuu kaga adkaado raggii dhaqay ee iska lahaa. colkaas guulaystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaa ula cidgalo. macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu kala soo fogaan karo inuu kala soo fogaado. haddii aanu sidaas yeelin, wuxuu mar walbaba halis u yahay nimankii geela lahaa intay isa soo abaabulaan inay ka daba yimaadaan, dabadeedna ay ka soo ritaan, welibana ay rag ka laayaan. si aan taasi u dhicinna waxa uu ammaanduuluhu ragga ka dhex qaban jiray qayb inta colweynaha dib uga hadha u jilib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada. waa ciidan aan tiro badnaynoo inta la hubo af soomaaliga 3 magac ku leh. mar waa raacda reeb, mar kale waa heegan, kol saddexaadna geedan ayay ku magacaabi jireen. ragga geela wataa markay is yidhaahdaan alla ilahe waa idin xalaaloobay ayay gabagaba dhigi jireen. macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan, maalmo idil cid ka daba timaadana ay waayaan ayay isa siin jireen. kolkaas bay iyaguna nasan jireen, geelana intay caydada ka daayaan ay u oggolaan jireen dhirta eebba baxshay inuu daaqo. lahaanshihiisa markii la yidhaahdo, geelaasi wuxuu u dhexeeyaa colkii soo dhacay oo dhan. goobtaas uu ku gebagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen. marka horese habeenka waa berigiisa la saanyan doono ayay waxay ka soo sooci jireen awr uu colku qasho. waa neefafka hilibka ah ee halabada ama dannabaha af soomaaliga lagu yidhaahdo. habeenkaas oo idil buu colku ka dulduuranayaa mudka iyo maydaqa koramadii la dhuun muday. habeenkaas oo idil baa kuruska iyo jiidka la isku dhafay ayay gaajada ku reebayaan. habeenkaas oo idil bay caanaha haleeladana intay isa soo agdhigaan magawsi iyo qurquraba kaga haagaanoo markay dharagdhacsadaanba ku noqnoqonayaan. tan iyo goor dambe waa u kaftan iyo xifaale. dhacdooyin la xidhiidha dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la isxusuusinayaa, waa la isximaarinayaa. hebelow, shalay sidaan waxyeelayay ma arkaysi? sidaan hebel faraska uga riday markhaati ma ka ahayd? adigu waa baqday iyo ma baqayna adigaa cararay. hadalla caynkaasa ayaa la isku tuurtuurayaa. dabadeedna korjoogaha mooye habeenbarkiibaa inta daalkii ku soo baxo uu nin waliba gadi cad u dhacaa, isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn.
waagu kolkuu baryo ay lasoo kackaco lana hamuun tirto ayay ka bannaan geela soo tubaan. ragga nin waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aada uu inta kale ka aqoonsado, dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo. hase ahaatee intaan hawshaa la gudagelin ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay soomaalidu ku dhaqmi jirtay. mar walba oo geela xabaadha ah qaybsigiisa la isu soo hor fadhiisto, xeer aan la iska indhatiri jirin. waa xeer ku saabsan dhowr nin oo ay u badan tahay colka meesha maraaya inay ku jiraan, bulshaduna ay si gaara u tixgelin jirtay. raggaas ayaa midkood walba waxaa lagu gunayn jiray tulud dheeraada, taasoo aan lagu tirin jirin qof ahaan kol dhow saamiga uu geela kale ka qaadan doono. waxaa raggaa ugu mudan loona horraysiiyaa ammaanduuraha. waxaa loogu yeeri jiray intuu geela dhex galo inuu ka soo qabsado hashii ama qaalintii uu la dhaco. waxaa xigi jirtay hal indhood tulud lagu magacaabo oo la siin jiray geela hadda la qaybsanayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay. waxaa xigi jiray laba halaadoo la kala siin jiray ninkii colka soo saaday ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiska ah qalqalaha uga soo buuxiyey, iyo intii ay duulaanka ahaayeen caanihii iyo biyihii ay wateen kii gaadiidkiisa ugu soo raray. waxaa xigi jirtay hasha xirsixirka oo la siin jiray markii uu duulaayey wadaadkii colka u xirsixiray ee yaasiinka ku wareejiyey, siday qabeenna geelaba isaga tuftiisa iyo karaamadiisa lagu soo helay. waxaase intaaba ka xiisa badan maanse qurxoolina ay ku soo aroortay hasha gabayga oo maanseyahanka reeruhu uu iska lahaa, taasoo iyada iyo wuxuu ku mutaystay intaba aan toddobaadka dambe si faahfaahsan idinkaga sheekayn doono. dhowrkaa tuldood markii laga saaro ayay geela inta hadhay si siman u saanyin jireen. qaybta uu nin waliba ka helaana tiradiisa guud ayay ku xidhay. sidaan meel hore ku soo xusayna colkaa soo qaaday oo keliya ayaa geela iska lahaa. iyada oo ay arrintu sidaa tahay ayaa haddaba waxaa marmar dhici jirtay meesha wax lagu qaybsanayo inuu isa soo taago nin ay colka hayb wadaagaan, kaasoo markii la duulaayay ogaa asii wax ugu wacnaaba aan ragga raacina dib uga haray. goobta ayuu isa soo taagi jiray isaga oo damac ka hayo in geela waxun laga siiyo. markaas bay ku jeesjeesi jireen, markaas bay u diidi jireen, welibana ugu heesi jireen. waxay ugu walgoon jireen haweenka la joogay hoolaalow intaad hurudaa la soo helay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga. waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo. aad buu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.